soo dhawaada ninkan wuxuu rabaa walaashiisa iyo cunug yar oo ay dhashay inuu guriga ka saaro kadib markii uu aabahood dhintay sababtana wax kale ma ahan ee qoftaan uu keensaday sidaas darteed walaashiisu bixina waxay ku dhehaysaa adigu waa inaad meeshan isaga tagtaa sababtoo anigu waxaan rabaa inaan meeshan yeesho hadda kadib midaan walaalkeedu waxay u sheegaysaa inaysan qoftaan wax kale u socon oo kaliya ay rabto inay lacag hesho laakiinse isagu hadalkeeda ma dhageysanayay wuxuu ku adkeysanaa inay baxdo iyaduna ugu dambeyn maxay samaysaa waatana way iska baxday markii ay soo baxday waxay imaanaysaa shirkadii oo aabaheed ka dhintay iyadoo meeshan taagna ninkaan aqoonsanayo waxay bilaabaysaa inay weydiido meesha uu ku bartay kadib intuu islaamo wuxuu ku dhahaa barasho wanaagsan aabaha intoosa dhiman shirkadan aniga iyo isaga isla lahayn markii uu dhintana walaalka aaboskiisii la wareegay aabaha iyo adiga sawir aad ku wada jirtiin mar walba isaga xafiiska u ooli jiray ee hadda meesha maxaa ka sameynay qof maya sugayay mayay ku dhehaysaa aniga iyo walaalkii isdagaalnay kadib gurigeyga soo saaray marka ani waa soo baxay si aan u raadsado meel aan joogo meeshaana imaaday si aan caawimaad u helo laakiinse dadka meesha jooga maysan igu ogolaan inaan gudaha galo iyadoo bixi rabto intuu celiyo wuxuu u soo jeedinaa inay isaga raacdo ayna gurigiisa joogto inta ay meel ka helayso iyaduna ugu dambeyn way ka aqbalaysaa wanaaggan uu sameeyayna way uga mahadcelinaysaa wayna is soo raacayaan markii ay gurigiisa yimaadaan wuxuu u sheegaa inay meeshan iska joogi karto waqtigii ay u baahan tahay inay ka tegi karto waxay ku dhehaysaa sidaas macquul maahan ka waran saaxiibta mise xaaskaaga haddii ayna arkaan maskaxdooda maxaa kusoo dhici doono laakiin isaga wuxuu ku dhahaa waxaad sheegto dhan malihii kaale aqolkaaga kusoo tuse midkaan midii saaxiibtiisa ahda intay ka aqli badasay oo gurigii oo aabiis uga tiga ku saxiixay isla markiina midkaana shirkada ugu imaanaya maadaama ay isaga hadda shirkada isla leeyihiin aabiisna uu dhintay wuxuu ku dhahaa ma aamini kari halkii guri oo aabaha kaaga tegay inaa hadda sadaqa ku bixisay isaguna wuxuu taagan yahay arrintan aan sameeyey shaqadaada maahan faraha kala bax sababta kaliya aad halkan u joogta adigu waxaad ahayd aabahay gacantiisa midig haddii aad qof kale ahaan lahayd ma uu kula sii hadli lahayn oo mar hore banaanka ku saari lahaa kadib midkaan wuxuu ku dhahaa kala baro bar shirkadan aniga ale wax walba ka dhacayana shaqadeeda waaye intaasna hadal kale ma u raacinayay meeshii uu isaga tagaa maalin kale midkaan isagoo meeshan iska taagan waxaa soo wacaya nin ayaan hore qamaar uga guulaystay wuxuu weydiinaa adiga lacagtayda xoog miyaa ku haysataa isna wuxuu ku dhahaa lacagtaada xoog kuma haystay aniga ku keeni doonay waqti yar iigu dar maadaama waqti badan la siiyey ninkaan waqti kale laguma daraya hal maalin oo keliya la siinaa habeenkii saqdhexe midkaan oo xafiiskiisa iska joogo oo u imaanaa wuxuu u sheegaa inuusan meeshan wax kale u imaanin oo keliya u imaada inuu sheerka uu shirkadan ku leeyahay oo dhan iibiyo midkaan wuxuu weydiinaa waxaanoo dhan maxaa u samaynaysaa sheerkaagu aad u badan yahay laakiin isagu wuxuu ku dhahaa waxaasoo dhan intaa ka baxdeed waxaan ka rabaa sheerkayga inaad hadda iga iibiso haddii ay iga iibi weyso waa baxa qof kalena ka iibinaa wuxuu soo xasuusinaa in sheerkiisa oo aad u badan yahay haddii uu iibiyana ay shirkadu burburi karto laakiinse isagu hadalkiisa wuu ka adkaysanaa ugu dambeyn wuxuu ku dhahaa ii imaa berito waa ka iibinaya markii uu soo baxo xaafadiisa yimaado wuxuu arkaa midkii walaashiisa gurigan xaaqiisa sababta markii uu weydiinay waxay u sheegaysaa inay sidaan wanaag ku dareemayso wuxuu ku dhahaa maanta taariikha dhacday walaalka intuu shirkada iigu yimaado wuxuu u dhahay sheerka aan shirkadan ku leeyahay oo dhan iga iibi aniguna haddii aan sidaas sameeyo waxaan hubaa inuu midkan lacagta si qaldan u adeegsanayo san wax wanaagsan ku qabanin waxay ku dhehaysaa gartiisa waaye sababtoo ah isagu lacagtaas muusan u soo dhididin kadib midkan gabadha wuxuu ku dhahaa midkaas sheerka waa ka iibsinaa sheerkana adiga kugu soo wareejinaa iyaduna aad u farxaysaa markuu hadalkaas ay maqasho subaxdii saaxiibkiin waa kanaaye wuu iskeenay midkan kalena lacagtiisii mar hore u diyaariyey wuu ku wareejinaa markii uu lacagta qaatay isagoo sii baxayo walaashiisa albaabka kula kulmaa wuxuu u sheegaya inay meeshan isaga tagto oo isagoo hadda kadib meeshan ka tirsanayn sheerkiisina uu qaatay markii ay gudaha soo gasho midkii caawiyey waxay u sheegaysaa inay wax walba soo diyaarsatay haddana ay diyaar u tahay inay sheerka la wareegto isagoo hadalkeeda aad ugu farxa wuxuuna u sheegaya inuu soo kaltusi doono meeshii hawsha ka bilaabi lahayd 2 sano kadib isagoo xafiiskiisa iska jooga waxa uu imaanaya midkii sheerka ka gadanayay wuxuu dhahaa lacagtii aan hayo oo dhan waa qarash geliyay haddana wax aan hayo malaha meeshan waxa uu imaaday inaan shaqo helo asaguna wuxuu ku dhahaa anigu shaqo ma ku sii kari ee wax yar sug managerkeena imaan rabe wax yar kadib walaashiisa imaanaysa isaguna intuu yaabo wuxuu weydiinaa sababta ay meeshan u timaaday waxay ku dhehaysaa anigu waxaan ahay managerka meeshan inaan booskan soo gaarana waxa igu caawiya ninkaas u jeedo markii uu ogaaday inay walaashiis managerka tahay wuxuu taagan yahay adiga qalad badan aan ka galay waxyaabo badan waa kugu sameeyay ee shaqo miisiinay sida waa iska baxa laakiin iyadu waxay ku dhehaysaa adiga waa ka roonana shaqadana waa ku siinaa waxaana waa qaybta nadaafadda haddii aad rabtid isaguna ma diidayay waa ogolaanaa inuu qaybta nadaafadda ka shaqeeyo gabadhana inta u timaaday waxay ku wareejinayeen uniformka oo shaqada ku bilaabi lahay muuqaalku intaas ka kaada halka soo gaarta leeg noo saar